daawaday maxaad ka taqaanaa looxa lagu barto quraanka kariimka si wali ma isweydiisay sida loo barto wali quraanka ma ku baratay loox iyo malcaamadkeed hoostii ah waa marxaladu soo maray qof kasta oo Soomaaliya oo soo dhigtay malcaamadda quraanka barisamaadkii wadaadaan wax ka weydiiyay sababtii looxa wax loogu baranayay ayaa ii sheegay in aanay jirin haba yaraatee qalin iyo buug wax lagu baran jiray waqtigii hore ee dadkuna ay iska ahaayeen reer guraaga malcaamadaha quraanka iyo looxa way adag tahay in aad ku aragto magaalooyinka waaweyn baadidoon dheer kadib waxa la igu sheegay tuulada oo barxadle ee gobolka Maroodi Jeex markii aan gaaray goobta malcaamadda waxa aan arkay arday iyo macalinkoodii oo subcinaya quraanka iyaga oo ku qorayo loox iyo khadmadow oo badanaaba laga sameeyo dhuxusha waxa aan la kulmay Sheekh Maxamed Cismaan oo ah macalinka malcaamadan dhiga waxaanu iiga waramay looxa lagu barto quraanka kariimka ah waxa weeye magacada aynu joogno oo barxadle madrasadana oo barxadle ku taala magacay waxa weeye Maxamed Cismaan Abdi madrasadana madrasad weyn weeyi taariikhdeedu way fogtahay ilaa waqtigii oo barxadle ee 8 qarniyo dheeraadka laga soo wareegay malcaamadii la dhigi jiray ee socon jirtay weeye culimadu ka soo baxday inteeda badani gaar ahaan markan anigu sheego ardaydii halan ka soo baxday malcaamadda darasadana aan joogo oo dhigayo ardaydii ka soo baxday ka soo qalin jabisay baan ahay inta kadib anigu malcaamadda inta aan dhigayay oo madrasada dhigayay intii hore anigu waxbarashada ku jiray mooyaane markan soo qaatay intii dambe anigu dhigayay ilaa 25 sano weeyi arday badan baa ka soo qalin jabisay ardaydii ka soo qalin jabisay raggan makaalkan taagan baa kamida nala jooga kuwa daafaha caalamka kala jooga kamida kuwa macallimiina way fara badnaayeen waxa lagu dhigtaa malcaamadda quraanka kariimka cilmiga diiniga haduu yahay xadiis haduu yahay aqaa'id haduu yahay carabi kale haday tahay ahkaam waa lagu dhigtaa intaba waa lagu dhigaa hadda golahan aynu joognaa waa golihii quraanka lagu dhigayay sidoo kale waxa uu uga waramay macalinkan oo malcaamadda dhigayay muddo ku dhow 25 sano waxa looxa iyo khadka laga sameeyo iyo intii ay jirtay malcaamadani waxa ay ku dhigtaan quraanka marka la dhigayo malcaamadani waxa lagu dhigaa oo ardayda loogu dhigaa waa looxa iyo khadka looxa dhirta laga qoraa khadkana waxa weeye dhuxusha dabka marka la baqtiyo dhuxushiisa iyo geedka xodayga la yiraahdo ama xabagta kaynta ka soo adaba ayaa lagu daraa iyo biyo la isku daray weeyi khad adag bay dawatan isku noqdaan looxa saasa loogu dhigaa looxa ta lagu dhigayo diinta looxa lagu dhiganayo iyo ta lagu dhiganayo buwaagtana way kala barakad badan yihiin way kala faham badan yihiin waxa baraka badan tan looxa lagu dhigayo iyo khadka waayo sababtu waxay tahay diinteenu waxay halka ku soo gaadhay heerka ku soo gaadhay buwaag iyo qalin ma yahayn awalkii waxay ahayd khad ama tawaadsa loo yaqaano iyo loox geedka laga qoray ayna halka ku soo gaadhnay sir rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam iyo asxaabtii ay noo cadeeyeen inoo sheegeen oo qarni waliba qarnigu xagga ka sii xigo inuu ka khayr badan yahay wixii la isticmaali jirnaa ay khayr badnaayeen marka aad bay u baraka badan tahay diinta lagu dhigto way barakaysan tahay khadka iyo qalinka lagu dhigaa macluumaadna caan bay ku tahay waa malcaamadii hore saasa lagu dhigaa ardaydu way ku aflaxaan ardayga u badan waxa laga yaabaa 2 sano ama 3 sano inuu quraanka saddex quraanka guud kaga qabto ku dhameeyo marka sidaa weeye saasay malcaamaddan caan ku tahay barashada quraan waa waajib qof kaste oo muslim ah laga rabo barashada quraanka ee looxu waxay ku tusaysaa in duruuf kasta aad ku baran karto kitaabka Alle Soomaaliduna waxa ay ku dadaaleen in awlaadooda ay quraanka ku baraan looxa markii miyiga la deganaa amba aanay jirin wax kale oo lagu bedelo run ahaantiina waxa ka aflaxay dad badan oo qaarkood maanta yihiin culimada waaweyn ee geyiga Soomaalida intaasi waxaynu ku soo gabagabaynaynaa warbixinteennii aynu ku eegaynay sida quraanka kariimka loogu barto looxa halkan aan ku suganahay waa deegaanka Awbarkhadle waaniga Hoodo Maxamed Jaamac iyo barbaartii kala qayb qaadatay